jenaraal 1965 waxaa la baabi'iyey ciidamadii aad ka tirsanayd ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha waxaana lagu daray booliska kadib shaqadoodu maxay noqotay marka adiga raalaha waxa weeyaan aniga waxaan yar ka booday markii aan ka soo noqonay Talyaaniga askar baan ahay waxaana la siiyay 2000 صح ريال baan noqonay intaan askar 60 baan ahay askar laba ugu bilaashaan lahayd oo madaxan baan ugu daray kadib intaan joogay markaan joogay maxaa Berbera intaan joogay halkaas daabal tirsadaa 2 sano ayaa noo dhamaatay marka sanadkii 3 waxaan qaadanay 3000 filan noqday waladeena noqday 3000 filan way markaan soo noqday Berbera ka soo noqday meeshaan joognay markaas waxaa dhacday markii ciidankii la baabi'iyey oo lagu daray aniga 3000 filan yaa waxaa dhacday tababar biliiska wada Faransiga markii la isku daray madaxdeedu waxay soo jeediyeen biliiska dadka waxa lagu siin jiray ninkii taliyaha aqoonba ku siin jiray ninkii hore u siin jiray in habka la bedelo oo laga dhigo imtixaan darajada lagu qaato hadda kadib lagu qaato habkii baa la qaatay waxaa la yidhi waxaa la qaadanayaa inspectors baa la qaadanayaa ama inspector marka 3000 yaashi jooga oo istaahila tababar inay galaan iskool bulisiya 6 bilood markay galeen halkaas aan galay aniga oo markaas aniguna awal xafiiska ka shaqeynayay macallin ahaa marka maxaad dhigi jirtay marka waxaan dhigi jiray shuruucda ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha وأوقات عنشور تعوق عنشور توصل عنشور ضبن كلا بحذا عشرة سو بليسك وساقوم بليسك وليجي عنشور التوصل maxay tahay tusaalahan عنشور توصل waxa weeyaan markii toos qofka mushaarka uu qaato loo goy waxa dakhligiisa toos soo gala ama ganacsiga ku soo gala ama say toos faa'iido toos helo yaa la xisaabayaa taas markii ka go'aysa ilaa 200 ma lahayn عنشور wixii ka badan baa marka garaad uga عنشور dalban waxa weeyaan عنشور aad bixinaysid aad ogeyn baad bixinaysaa عنشور waxa loo yahay waxa kamid ah sigaar baad gadanaysaa sigaar marka aad sigaar baad gadatay laakiin عنشور baa saaran marka waa bixinaysaa aad ogeyn sigaarka waxa hadayada dalban lafta kala baxda maara mid aad ogtahay mid aad ogeyn waxa kamid ah barnaamijyo warqadahan lagu qorto arjiyada lagu qorto kaarto balaat leeyahay laba shilin bay joogtay Soomaaliya صح هذو كارت بلات عاد wax arki ku qoratid baarta inaad qoratid oo qortiyaad dalb gadanaysa laakiin lacag baa saaran laba wada joogta waa canshuur laakiin ogta markaas hadu og baad bixinaysa laakiin sigaarka iyo marka sharaabka cabaysiyo hadu sharaab baad dalbatay sharaab cabtaysa adiga ma ogid laakiin canshuurti okay canshuurtu waagaas ma waxay ahayd sida hadda wadamadan wadankan Sweden oo kale hadda aan ku noolahay oo kale dukaanka marka laga soo tago waxa weey canshuurta dukaanka marka laga soo tago shay walba canshuur gaar ah dawladda u saaran ma qaabkaasay marka dawladda hore ee Soomaaliya sida miyay qaabkaas miyay ahayd mise waxay ahayd marka canshuurta waxa looga soo qaadaya dekada ma dekada waa gool wixii dekada ka soo dego way laga qaadaya qofkii soo degstaa laga qaadataa macnaha waxaan sheegayaa qofka markuu dukaanle u yahay dekadii uu alaab kala soo dego canshuur baa laga qaaday kadib dukaankii uu keen markuu dukaanka keeno oo dukaanka uu gadanayo faa'iido helay ilaa maxbuus saaranaya aad iyo aad sanadka waxa la xisaab marka maxay ku fadhiyay iyo imisuu saartay marka faa'iido ka soo gashay canshuur toos u gelinaya waxa la mid tahay mishaarka qaadan soo kale yaa laga qaadaya waxa weeyaan faa'iidadii uu helay sanadkan oo lacagtii uu galay intaas alaabta ku fadhiyay intaas uu ka sii bixiyay intaas faa'iido helay waay taas laga qaaday canshuur toosan baa laga qaaday dadban wuxuu ku soo bixiyay dekada waxaan barjay sharciga maaragtay canshuuraad toosan ayaan dhigi jiray aniga marka kortii hadaan galay 6 bilood aan ku jiray imtixaan baan laga qaaday waxaan noqonay inspectors markaan noqonay 10 qof oo ugu darajo badnaa waxay noqonayaan macallimiin biliiska bara cilmi maxalliga sharciyada ama ha noqoto canshuuraha xagiisa ama ha noqoto canshuuraha maaragtay penal code-ka iyo procedure-ka iyo kulli inay dadka barayaan dastuurka inay baraan goboladan lagu qoray marka 8 gobol jirta 8 nin lagu kala qoray 2 nin iskool bulshada lagu qoray anigu markii 2 iskool bulshada lagu galay baan kamid noqday yaan joogay halkaas aan joognay ilaa maaragtay taliyaashintii isbedelaan waxa si la yiraahdo
saraakiil baa la rabaa sargaal marka waxaa lahaa ninkii inspectora yaa geli karay sargaalfay ma geli karin صح inspectorii markii imtixaankaan galay imtixaanka aniga waxaa noqday xidigle intaan galay xidiglaan noqday markii xidiglaan joogay iskool bulshada la joogay aniga macallin ahaan igama bedelin iskoolka maalinka anoo sidii u joogay iskoolkii yaa kacaanka ku dhashay okay kacaanka xilligu u dhashay sanadkii 1969 isla xilligaasi waxa aad noqotay madaxa xafiiska xoog ku soo xareynta canshuuraha baaqday ee wasaaradda maaliyadda marka muxuu ka shaqeynaya xafiiskaas ma intaas kacaanku dhicin cabdirashiid iyo markay fuuleen maxamed ibraahim cigaal ay noqdeen madax iyo waxay abeeyeen canshuurta inaan la bixinin ba arkeen walta reersi u yeereen waxaa la canshuurta la bixiyaa marka waxaa la yidhi xafiiskii xoog ku soo xareynta yaa sharcigu qabaa sharciga maaliyadda xafiis wuxuu qabaa xafiis canshuuraha toosan iyo xafiiskaas xafiis xoog ku soo xareynta canshuuraha la yidhahdo ufficio esecuzione forzata imposta marka dadka loo magacaabay marka anigaa la ii magacaabay xafiiskaas inaan madax ka noqdo aniga laba nin oo sargeliye anagaa noqon wasaaradda maaliyadda yaa la shaqeynay baabuura lala siiyey kulli inaan ku orro marka xafiiskaas shaqadiisa waxaa weeyaan waxaad u tagay dowladda waxaa ku siinaya xafiiska canshuuraha ku siinaya liiska dalka canshuuraha adigu ma naqaan iyagana liisana si dalkaas canshuur ku baaqatay halka soo qaada dukaan baa tegaysaa bariseynba dukaan baa lagu lahaa dukaanka u tegaysa waxaad leedahay canshuurtaasaa lagu leeyahay intaas sanaada bixinin canshuurtaan bixi tag xafiiskaas soo bixi saddex beri muddo ilaa saddex beri u qabsan karaa hadduu ogolaado ninkaasu saddexdii beri baan siinaysaa dukaanka waa ka xiraysaa marka dukaanka waxaa maya sigaa wata qufil baad leedahay xafiiskaaga sigaa xiranaya qufilkiisa furihiisa markuu xirto adiga waxaad wadataa xarig iyo biyombo xarigii baad qufilkii suraysaa xarig yaroo bira biyombadaad suraysaa shabadaad ku haysataa ku dhufanaysaa bas haddii gooyo xarigaas waa garanaysaa marka ma taaban karo markuu go baahdo canshuur soo bixiyo aduu ku imaanhayaa xafiiska xafiis ku imaanhayaa markaasaan ka furayna anagu ka goynayna asiga hadduu gooyo waa xarig dembi marka far ma saari karo marka hadda waxaa dhacday markii dambe waxaan war dadkii waaweyn kusoo dara ganacsatada waaweyn iyo shirkadaha waaweyn iyo mas-uuliyiin iyo canshuur qabaan jireen dadka yarkaa noo qorina waa yeelaan waxay siiyeen liis ku jiro wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya markaas ahaa sida ogtiina biliisku wuxuu hoos yimaada wasiirka gudaha yaasiin weer xaysiinin la yihahdaa joogayoo maxaa la yidhahda aad iyo aad influenta siyaasada magac bayn ku lahaa dowladda aniga marka asigaan ka bilaabay waxaan ninkan xafiiskiisaan xogeyntaan tegey waxaan rabnaa tesla ninkaan tuso bes wey anaga waana yaqaan tributary lagama horiba xafiisyada qofkii diida bes dembi weyn waayo bes hawsha waxaan wari wasiirkaan rabnaa anaga maxaa ka rabnaa adiga isaga khusaysaa wax khusayaan rabnaa ma weydiiya waxaa wasiir waxaa kuu joogaa niman tributary noo sheegtay oo saasa oo adiga ku raba soo daayoy waa galay xafiiskii wasiirka waa salaamay aniga nimankii la socday bes maxaa rabtaan waxaan rabnaa baan aad qabtaa warqadda canshuuraha inaad canshuur shirkadda aad ku jirti adigu leedahay in canshuurta lagu leeyahay marka canshuurta dowladda hadaa bixisaan rabnaa lagu soconaa